xukuumadda Sacuudi Arabiya ayaa ku dhawaaqday tallaabooyin loogu talagalay gudashada cimrada oo la hakiyay 6 bilood ka hor sabab la xiriira cudurka COVID-19 si looga hortago faafidda cudurka COVID-19 dadka cimraysanaya ayaana la sheegay inaysan taaban doonin xajwatul aswaadka masaajidka xaramka oo ah halka ay ku taalo Kacbada ayaa maalintii la nadiifin doona 10 jeer sidoo kale dadka ka muuqdaan calaamadaha cudurka COVID-19 ayaa loo diyaariyay qolo lagu karantiilo Sacuudi Arabiya ayaa toddobaadkii la soo dhaafay ku dhawaaqday in si tartiib ah loo furi doono cimrada laga bilaabo bisha nagu soo aadan ee Oktoobar ee sanada 2020 laga bilaabo 4 Oktoobar dadka u dhashay dalkaasi Sacuudi Arabiya iyo ajaanibta ku sugan dalkaasi ayaa loo ogolaan doonaa gudashada cimrada iyadoo maalintii kaliya masaajidka xaramka ee Maka ay gali doonaan 6,000 oo ruux halka 18 bisha soo aadan ee Oktoobar ay boqortooyadu ogolaan doonto in ka badan 15,000 oo xujay ah oo cimrada ku gudan doonta masaajidka lagu magacaabo Al-Nabawi ee magaalada Madiina ee dhulka barakaysan ee dalkaasi Sacuudi Arabiya dadka ka imaanaya meel ka baxsan Sacuudi Arabiya ayaa loo ogolaan doonaa gudashada cimrada laga bilaabo 1 November ee soo socota Sacuudi Arabiya waxa ay ka mid tahay dalalka sida weyn oo u saameeyay cudurka COVID-19 waxaana madooyinkii ugu dambeeyay boqortooyadu ay waday si tartiib ay u fureysay goobihii hore xayiraadu loogu soo rogay oo la xiriira cudurka COVID-19 dadka ku nool Sacuudi Arabiya ee ajaanibta ayaa waxa horay ay u sheegeen in dhibaatooyin fara badan ay soo wajahday xilliyadii oo aadka u saameeyay cudurka COVID-19 ee dalkaasi Sacuudi Arabiya